dowladda Mareykanka ayaa hanjabaadii ugu cusleed u dirtay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi qadiyada Coldoon oo Mareykan dhaaftay xuduudaha iyo sidoo kale qaaradahaba waxayna isaga kala goostay ka qaarad tabada nin yiri nin baan guursanaya ya naagtii naag baan qaba anagu la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah man ka taagnay Cabdi Maalna xaq buu ku adimaya xaq anaguna xaq baan ku adimayna wala Muuse Biixi wala madaxweyne anagu wax madaxweyne noo yahay ma jirto maalintii uu diinta islaamka khilaafay ayuu madaxweynaha yaga naga dhaaf Cabdi Maalig horta ceebtiina dabada muu soo dhigin Cabdi Maalig gabadha Kristanka ah buu sheegay inuu maxay dhigaysaa wax la ogaado laakiin ceebtiina waxa soo dhigay caalamka ayaa layni ka daawaday layni kala ogaaday inaad baadeen oo rogmateen Somaliland oo naba magaci ka dishay magaca Somaliland dhulka la gashay لا إله إلا الله محمد رسول الله ودينتي نبى يبستنا إلهي على عبسط بسم الله واحد نقام ضمن شرف يا كرامة وانا كجودن بابنا الله سبحانه وتعالى نومو إدمن إن أنا عيد هذا يعيب هذا تبينه وحبق روحه يشرف كامل هلينه لكن أديك أياكل عشاب كي شلي كدارتي ما أنت وي وريهن هرات بي وريهن أبار بي وريهن ميل كستيت بيهن ويبابا سيهن حاجبات كناشة تاسوا كود قنينه aad bay kuugu liidataa dalaacay kugu tahay sharafna way ku laana way kugu tahay waxaan leenahay hoos eeg dalkaaga hoos eeg diintaada diinta lagu anagu aanu ka hadlaynaa ma aha mid aanu ka xigno ma aha mid aanu leenahay maanta anaga mitila ma aha shariistaatankii markii rag diinta fidinayay reeso jabhada saaq aha loo xiirayay tiibad wada tina ka yeelimayno na Cabdi Maalig waxba kuma haysaa waa naagaha la soo ururiyay Cabdi Maalig ceeb male idna waxuma diran وأنين إلهي وأنين إسلام ككيب وكي كيب رقبة كورهي نا حبا ما وجديني عبد المالك هيسكسو داي موسى بيحي عبد المالك عندنا وحمد درن عندنا وحمد جيسن مدنا مدح وين وراها يوحين هيستيو Coldoon وحفصك كودين مايو أنا بنت ددي ميسي كنت واللي ديدي دبين باللو قولي إن بدن وحد كهذا الشا كنت إن بدن وحد كهذا الشا ظلميga iyo dhibaatada jirto in laga dhiidiyo laakiin adduunkan hadda aan joogno dadka ku nool may ogol qofka beenta sheegaya oo beenta badan waa qofka ugu runta badan agtooda dad badan oo waxaa jira ku heelan doonayana inaad ka daasho dunidan oo iska baashaasho meesha doontana aad marto dad badan oo waxa doonaya dabin ku qoolayo rabaana inay ku dilaan kuna wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan soo dhawaada mar kale waxaan ka hadli doonaa xarigii xaqdarrada ahaa ee Cabdi Maalig Sheekh Muuse Coldoon maalmahan waxaa socday in baraha bulshada aad looga hadalhayo in xariga xaqdarrada ah ee Cabdi Maalig Sheekh Muuse Coldoon kadib markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday cadaalad in Cabdi Maalig ilaa hadda wali uu u xiran yahay cadaalad darro wasiirkii hore ee warfaafinta Cadaani waa Somaliland yaan ka hadlaynay hadal qiiro leh ayuu xaqiiqatan uu sheegay waryaana lagu rogin waryaana lagu halaagin waryaana lagu baabi'in abaarahan iyo musiibooyinka taagan waa dulmiga aynu sameynayno كميدها كميدها هذا الكعداني حقيقة واحد أو تشرو أي وزير كهذا وزير هراء أو Somaliland حق وقال وإيه أهرمها كجرو ماشي هيدا إيه أدبو وحوش جاي إن عبد المالك حرقي سقوي هاي ظلم عد أم جد وصق بس نكستن وأوجي هاي نينكي انتي لقبتي لجيبيي laga soo qaaday gobolka Togdheer la keenay Murudijeeh intaas la soo waday iyadoo wada ognahay in Burcay ku taala maxkamad iyadoo wada ognahay in Burcay ku yaalan xabsiyo ugu xiri karo in Hargeysa Mandheera la geeyo kadib la iska haystay muddo dambiye uusan lahayn la soo oogay markii la keenay maxkamadda socon waayeen maxkamadina ee cadaaladii si waafaqsaneed ay raacday ay tiri ninkan wax dambi ah ma laakiin waxa la doonayaa in loo maleego dambiye uusan lahayn qortana loo geliyo dad badan oo wax garad ah baa ka hadlay culimadii baa ka hadashay siyaasiyiinta baa ka hadlay Cadaani baa hadda ma taqaanay ka hadlay
wuxuu sheegay in somalilan la wada leeyahay aysan ahayn middan markii la eego qaabka loola dhaqmayo cabdimaalik. waayo somalilan waa dal la wada leeyahay oo beeraha somaliland ay wada leeyihiin. waxa u dhexeeyo waa maxkamadaha iyo mataqaanay ee dastuurka in laisku waxay. inta hadii laga soo gudbo liraa anigu ii xiran yahay qofka ii xirnaado taasi suurtagal ma noqonayso. wasiirka wuxuu sii raaciyay in dhammaan Soomaali meel kasto ay joogto dunida in ay mudaaharaad silmi ay qaadaan kuna dalbanayaan in Cabdimaalik la sii daayo. habeenii maalin ma u fadhinaa halkan inaan kaga hadalno dulmiga iyo dhibaatada lagu hayo Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon. waxaa na soo gaarayo kadib markii ay hadleen waalidiinta iskuulka Abaarso wixii ka dambeeyay Cabdimaalik in xabsiga cadaadis xooggan inuu kala kulmayo, handadaad inuu kala kulmayo. waxay sheegeen eheladiisa markii ugu dambeysay Cabdimaalik maskaxiyan iyo jismiyan inuu caadi ahaa. haddii dhibaato soo gaadhana ay mas-uul ay ka yihiin waalidiintii shalay diinta ka saaray isagoo muslim ah kitaab qur-aan haysan tukanayo yiri waa gaal. waalidiintii shalay yiri waa beenaale waxa uu sheegay waxa kama jiro. Cabdimaalik waxaa wada jecel ummadda Soomaaliyeed, waxaa nacab dad gooni ah oo qabiil iyo qabyaalad ay dishay baa mataqaanaya nacab. Cabdimaalik wuu ka weyn yahay hankiisa waxa la yiraahdaa qabiil aad buu mataqaanaa ugu weynaa. dadka uu caawinayay oo muusan kala soo ceenin yaa tahay. taasi waxay ku tusinaysaa marka dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan inay jecel gooni ah inay u qabaan Cabdimaalik, ayna doonayaan in dunidan uu iska dhaasho inuu dunidan si xornimo ah ku joogo, in dunidan uu ilaahaygiisa ku caabudo ilaa inta mataqaanaa ilaahay uu kala kulmayo. dadna waxay doonayaan inay dunidan dhaafiyaan iyaga oo ka xun wanaagga uu sameynayo. haddaba maxaa kaaga baxay marka hadalka wasiirka ee ahaa waa in mudaaharaad silmi ah aan qaadno oo Soomaali meelay joogtaba aan u doodno xaqi uu lahaa Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo ahaa inuu xorriyadiisa in uu helo. maalinba waxaa la soo ogaa dambi ama waxba ka jirin oo la doonayo in qoorta loo geliyo. waa socon waayaa mid kale waa doonaa waa la soo waxaya ma soconayaan. dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxay garab u yihiin Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon. maamadii shalay la garab istaagay muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay garab istaageen ama siraad. xaqiiqatan haddii Cabdimaalik uu joogi lahaa marka iyada in aysan tuugsateen hadduu arki lahaa. waayo waxay ka mid ahayd kaalmee kuwan dadkii mataqaan loogu talagalay iyo mataqaana ka mid ahayd in aan bulshada la soo gaarsiinin ay mataqaana u gacan horsata iyada, laakiin iyada wax loo weydiiyo la yiraahdo war hooyo dhiban baa jirtay wax u soo qabta. taasi waxayna tusinaysaa marka cadaaladii uu Cabdimaalik uu hayay in loogu bedelay bedelkeeda cadaalad darro, in loogu bedelay dulmi, in loogu bedelay hagardaamo iyo wixii la mid. dadka reer Somaliland waa dad diig leh, waa dad nacab dulmiga. maxay u dhaheen goonan u istaagno Soomaaliland ka go'nay? dulmi bay diidanayeen lagu hayay xilligii dowladda kacaanka. dulmi gooni ehbeen yaa lagu hayay dadkaas. saasoo ay tahay way diideen, waxay dhaheen maya dooni mayno. haddii dulmigi isaga ahaa Muuse shalay uu diidanaa oo uu lahaa mataqaanaaye dulmi waan diidanahay oo isagoo askari oo waxaasoo garaada ku taxnaa uu duurka u galay. haddii maanta Cabdimaalik mataqaanaaye meesha uu joogay oo hooyadii iyo aabihii ku noolaayeen oo dhulkiisi ah qaarkoodna ku xabareen awgeedii in lagu dulminayo maanta, haddii berri uu jabha samayso duurka uu galo maxaa la dhihi marka? waayo dulmigii shalay laga digayay yaa maanta asaga lagu hayaa. ma rabna amni darra iyo wixii la mide iyo mataqaanaa khalkhal amniga la gelinayo, laakiin cadaalad baa loo baahan yahay. waxaa la rabaa dastuurkaas in la wada siman yahay.
waxaa la doonayaa maxkamadaha in cadaaladda ay dadka u wada saman yihiin laakiin in dad goona la fuquuqo dadna lasoo dhaweysto suurtagal maaha wax dhici karana maaha cabdimaalik wuxuu u baahan yahay cadaalad cabdimaalik cadaalad u baahan meel kasta oo aan joognan waan garab taagana cabdimaalik dadka soomaalida dhammaan garab u yihiin waa mahadsantahay